بسم الله الرحمن الرحيم دمان ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtiin waa idin salaamay salaan kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelimad ka yiraahdo arrinta ka soo cusboonaatay magaalada Beledweyne iyo colaadda ka socoto marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo baaq aan u jeedinayo inta dagaalka muxuu ahaa ku jirto waxaan rabaa inaan iraahdo dagaal wax faa'iido male dhanka joogtidba ka joog dagaalkaas sida ugu dhaqsaha badan in la joojiyo ayaan ku baaqayaa khaasatan waxaan si toos ah ula hadlayaa cidda duushay dagaalka qaaday inay joojiyaan dagaalka wax ay ka dheefayaan ma jirto dagaal wiil ayaa ku dhintay wiil kuma dhasho marka dagaalkaas halaga waantoobo ayaan soo jeedinaa intii duushayna ha joojiyaan iyagaa laga rabaa inay bilaabaan inay joojiyaan waxaan rabaa dagaalka laftirkiisa inaan kelimad ka iraahdo dagaalkan sida ummadda Soomaaliyeed ay la socoto waa dagaal siyaasadaysan ma aha dagaal iska dhacay ma aha waa dagaal siyaasadaysan waa dagaal muddo dheer la abaabulay oo laga shaqeynay oo aad loogu howlanaa guntiisuna ahaa in magaalada Beledweyne la yiraahdo doorasho kama dhici karto sababta saas loo leeyahayna waa iska caddahayo wixii farmaajo loo diidanaya rag rabaan inay sameeyaan oo ah kuraasta aan boobno inay saa tahay waxaa ku ogaanaysaa sida kuwa musharaxiinta ay arrintan uguna faraxsan yihiin uguna dhagaduleelaan oo ay u rabaan iyagoo isleh Cali Guudlaawa wax idii boobi doono haddii Jowhar wax la geeyo siday ugu reeqsan yihiin dagaalka haddaysan abaabulka qayb ka ahayn maxaa yeelay way hadli lahaayeen iyagoo hadlaa la arki lahaa horey weligood ugama hadlin haddana waa ka aaminsan yihiin oo kama hadlaayaan waa dagaal cad oo siyaasad salka ku hayo qabyaaladna aysan ka mareen waxaa hadda dagaalkan qaaday ee Beledweyne geeyey dadaa waxaa kule Cali Jayte ayaa wax sameeyey Cali Jayte wuxuu samayn kara ma jirto Cali Jayte waa la cadaadiyey inuu dagaal galo waa lagu kalifay inuu dagaal galo waxaa la yiri Jowhar looga yeeray si uu mataqaanaa dagaal loo geliyo yacni waa nin runtii wuxuu meeshan ku arkay ma naqaane u la jeclooday muxuu ahaa waxa uu gacanta ku hayo door biday inuu tolkiis dagaal geliyo iyo deegaankiisi Jowhar markii laga wacay asoo feer joogo iyo maxaa kulmiyey dagaalka waa iska cadda waa dagaal beel kale ku wada sida aniga aragtidayda ah salkana ku hayso kuraas la boobay waa dagaal ay wadaan niman isku reera ee Beledweyne saldhig looga dhigay inay saas tahay waxaa ku ogaanaysaa ninaa waxaa la yidhi waxaad madax u tahay booliiska Hirshabeelle laakiin meesha uu degan yahay oo ka shaqeeya waa Beledweyne ninaa waxaa la yidhi ciidankaad madax u tahay laakiin meeshu ka shaqeeya waa Beledweyne Jowhar kama shaqeeyo meel kalan kama shaqeeyo maalin walba dagaal hurinaya Beledweyne ka dhex hurinayaan kuwa taliyaasha u ah taliyaha booliiska iyo taliyaha militariga la hadlaya dadka ha hoosaasinina haddaadan dagaalka qayb ka ahaynina ha hoosaasinina maalin dhowto waxaad tiraahdeen ciidan geli kara dagaal qabiil iyo dagaal siyaasadeed
ma jiro mana u dulqaadanayn hortiina maxaa ka dhacay in ciidankii Soomaaliyeed loo adeegsado siyaasad magaalada Beledweyne dhexdeeda in booliiskii Soomaaliyeed loo adeegsado dagaal qabiilaysan dagaal siyaasadaysan loo adeegsado ummadda yaan la hoosaasinin magaalada Beledweyne duulaan qabiil maanta uguma horeyso ilaa cagadhiig ayaa magaaladan la weerarayay oo lala dirirayay shalay ahayd kuwan ka fara badan oo ka nidaam qaab leh ayaa ku dhex noolaa waaye oo aakhirkii ayagoo meydkeeda ka aruursaday magaalada Beledweyne cadaadis iyo colaad gacan lagulama dhigo manaba dhacaysaba horeyna uma dhicin nimanka ku riyoonayo in magaalada Beledweyne cagta hoosteeda la geli karo nimankaas dib ha u fiirsadaan wax badan baa ka khaldan wax badan oo badan ayaa ka khaldan doorashada markay timaado filinka aad dhigaysaa ma shaqaynayso doorashadan qabiila iskale qabaa'ilkaasaana dooran doono qofka ay rabaan gurigoodayna ku dooranaya haddaa jowhar kuwa daba dhilifa ay xildhibaan ka soo noqdaan kuwa kala Beledweyne ka soo noqonaya waddanka buuq iyo mashaakil iyo cadaalad darro iyo colaad yaan loo horseedin wax fiican ma aha cid ka liibaanaysa ma jirto cid ka liibaanaysa ma jirto boosaaso dagaalaa la geeyey dagaalaa ka dhacay laakiin waxgarad dadka kala dhex galo ayay leeyihiin dadkan meelahan dego oo inay ismaquuniyaan maahane aan caqliyad kala lahayn aakhirkoos ku dhammaanayo wax ay kala qaadayaan iyo cid ka adkaato Soomaaliya ma jirto ama caqliga Puntland oo kala shaqaynayo ama sidii Ilaahay ugu talagalay noqonaysa kuwa isle cali guudlaawe ayaa kuraasii soo boobi doono waa hungeysantii aada u hungoodeen aada u hungoodeen kuwa intii la abaabulay kuwa ka dhiidhiya xaqdarrada lagu salladay ninkii heese wuxuu yiri walaalkaa ninkii dilay aduu kuu danleey ninka maanta xabad Beledweyne inta tegay ku dhufanayo adigana wax kuma aqoonsan marka walaalka ayaa laga horkeenin wax xumaana iyo colaada iyo wax kala dhaxeeya ma jiro yaa colaad lagu abuurin haddii aad walaalka garab istaagi kartid garab istaag haddaadan garab istaagi karin yaa lagu isticmaalin waxaan rabaa inaan la hadlo ugu dambaystii Roble haddii aadan saf noqonin waxa kula gudboon waa ku cadda in la siyaasadeeyo doorashada Beledweyne ka dhacayso shaqooyinka lagugu aaminay ay ka mid tahay ama kaalintaadaad ka soo baxaysaa hadda waa ku wada joogaan raggii maamul goboleedyada madaxdu ahaa haddii gacantaada in wax lagu gooyo laysku dayo adna a u nuglaatid waxaa ogaataa in shaqadaadu sii adkaatay waxtar xumadaaduna ay aad u soo bannaan baxayso
arrinta beledweyne waxay ahayd mar hore in wax ka qabato waxaa laga yaabaa arrimo kaaga culus inay ku haysteen laakiin maanta wax ku haysta male waa inaad xaqa u helisaa waa inaad dulumka diidaa waa in doorashada waxa soo socdana lagu shubanin waxa horey loogu shubtayna aad dib u soo celisaa haddaad intaas yeelin waa macno beeshe aada u macno beeshe waxaa wax ku tahayna waa in dadku kalsoonidooda aad haysatid haddaa kalsoonida dadka dhumisid inaad dhumisana aada u sahlan tahay maxaa yeele maantay waxa laysku hoos dilaayo waa howl adiga aad mas-uul ka tahay waxaan ilaahay kaaga baryayaa in xaqa ilaahay ku tuso inuu talada fiican ilaahay ku tuso in ummad loo dhammeeyo in kuraastooda la boobo waa nasiib daro adigana aad taagan tahay waxay ku gaarsiisay meesha maalin dhaweeta aad soo fadhiisatay haddii qabow kaa tahay iyo haddii ay garashalaan kaa tahay iyo haddii aad adigu laftirkaaga ujeeddo leedahay waxay tahayba waxaa lagaaga fadhiyaa in arrintan colaadda aad hor istaagtid joojisid xaqana u helisid wabillahi towfiiq